magaalada Muqdisho waxa saacada la joogo ka bilowday bando ay dawladdu soo rogtay waxa wax yar ka hor magaalada qaybo kamid ah lagu arkayay gawaadhi booliis ah oo dadka u sheegaya inay bandooda u hoggaansamaan oo ay guryahooda ku xaroodaan waxa warbixin saacad ka hor ku eegayo duruufahaasi ku gadaaman bandooda inoo diyaariyay Qaalib Xasan Baaruud waa Muqdisho saacad ka hor waqtigii bandagu bilaaban lahaa laakiin magaaladu way camiran tahay degdeg iyo caraaba toonna ma jirto awood iyo isxilqaan midna ma muuqdo bandagu waxa uu magaalada saarnaanayaa saacadaha u dhaxeeya 8 habeenimo ilaa 5 subaxnimo lama cayimin muddada uu bandowgu magaalada saarnaan doono lamana hubo in dadweynuhu ay u hoggaansami doonaan amarka dawladda laakiin amarka dawladdu ma ka hirgalay xeebta Liido oo hore loo xidhay labada gelinba xeebtu way camirnaan jirtay laakiin maanta dadkii intii badnayd qashin ayaa beddelay iyo dhalinyaro aan wacdigu gaadhin ama iska indhatiraya guud ahaanba waxaa dhammaaday maalmihii dalxiiska dabaasha iyo laafyoodkii lagu cabbi jiray laydha fiidnimo maadaama ay kaabayaasha caafimaadka ee dalku aad u liitaan khuburo badan ayaa aaminsan in tallaabooyinka ugu habboon ee lagaga hortegi karaa masiibada fayraska corona ay yihiin wacyigelin bulsho kala fogaanshaha dadka iyo guryaha oo la joogo halkii bukaanka lagu dabiibi lahaa sariiraha cusbitaallo aan dawo lahayn waa talo fudud in la fahmo ama la raaco haddii aad dhaqaale haysid laakiin dadka badankiisu waa sabool muruqmaal ah gaajo guriga la joogna talo ma aha haddaba waxaa muhiima dejinta siyaasad iyo qorshe isu dheelitira baahida dadka iyo ka hortagga masiibo caafimaad oo aan awood loo hayn wacyigelinta iyo ka hortagga fayraska corona waxaa caaqibad ku noqon kara dhaqanka bulshada iyo qaybo ka mida culimada oo ilaa iyo hadda masaajidda camiran ka doorbidaya caafimaadka muuminiinta waa tahay haddaba si aan u eegno xaaladda guud ee koronaha iyo Soomaaliya waxaa magaalada Stockholm ee Sweden igaga soo biiraya Dr. Khaliif Bile oo ah madaxii hore hay'adda WHO ee caafimaadka adduunka ugu qaabilsan dalka Pakistan Dr. Khaliif soo dhawow waan arkaynaa dawladda Soomaaliya bandoobe ku soo rogtay caasimadii si looga hortago faafista koronaha maxay tahay muhiimadda ugu weyn si cudurkan faafistiisa dadkii Soomaaliyeed iyo Soomaaliyaba looga hortago aad iyo aad baad u mahadsantihiin marka horeysa waxaan salaamayaa dhammaan xubnaha BBC-da iyo dhegeystayaashiinaba xanuunkani muxuu ahaay nasiib wanaag innaka xaggeena wuxuu inoo soo gaaray waqti dambe oo adduunka uu soo maray dad badan laayay marka xanuun shaki ku jira ma aha waxaan maanta inuu hubno inuu yahay cudur muxuu ahaay adduunka ka jira ilaa 120 iyo ziyaado kun qof muxuu ahaay u dhimatay 2 milyan ku dhawaadna u bukoodeen la hubiyay inay xanuunka qabaan marka muxuu ahaay dalkeenna waa xanuun soo galay oo hadda ilaa 60 qof ay laga helay 2 qof ay u dhimatay marka ma aha muxuu ahaay malaawaal waa xaalad dab ah waana xaalad khatar ah marka laga eego waan gartay doctor maxaad is leedahay markaad adigu eegto dhakhtar weyn baa soo shaqeeyay Soomaalida dhaqankeedana wad garanaysaa maxaad is leedahay waa caqabadaha ugu waaweyn ee xagga dhaqanka Soomaalida markaad eegto hor istaagaya in cudurkan faafistiisa laga hortago runtii wariyihii naga horeeyay erey badan oo muhiim ayuu sheegay dhibaatada u weyn waxa weeyaan muxuu ahaay waxa jira caqabado Soomaalida muxuu ahaay u badan u gaar ma aha laakiin u badan waxaa ka mid ah muxuu ahaay caqabadaha in dadka muxuu ahaay aqoontoodu muxuu ahaay xagga xanuunka ay weli u baahan tahay in la muxuu ahaay xoojiyo oo baraarujin iyo muxuu ahaay iyo wacyigelin iyo muxuu ahaay aqoon kordhis la siiyo si qof kastiba oo ku nool dalka uu muxuu ahaay aqoon isaga iyo qoyskiisa muxuu ahaay ku filan u helo taasi waxaa ku xigta in dadku ogaadaan
in xanuunkani uusan ahayn uu yahay xanuun laga hortegi karo xagga caafimaadka xagga nadaafadda xagga gacmo dhaqashada xagga kala fogaanshaha aan sheegaynay iyo xagga muxuu ahay qofku inuu ka dirko oo gurjoog noqdo muxuu ahay waxaa caqabadaha kale oo in haysta waxa weeye inaku hadda dadka dhinta ma tirino marka ma ogaan karno muxuu ahay imise qof baa xanuunka u dhintay waxaa loo baahan yahay in barnaamijyo dhaqan oo bulsho laga sameeyo gobol kasta degmo kasta xanuunka muxuu ahay lagu ogaado dadka lagu wacyigeliyo dabeedna muxuu ahay aynu samayno guddiyaal qaran ma aha caafimaadka keliya mas-uuliyadda in la saaro guddiyaal qaran oo ay madax ka yihiin ra-iisul wasaaraha xagga heer federaal iyo madaxweynayaasha iyo muxuu ahay madaxda gobollada oo ay guddiyaashaasi muxuu ahay dagaal cad kula geliyaan xanuunkaasi waa safmar waana dhul xaaqi yani geeri badan baa ka iman karta haddii aan wax laga qaban markaa dayalsi weyn oo baahna waxaan doonaynaa culimmadu inay muxuu ahay ay fahmaan oo muxuu ahay ay ka qayb galaan aad baa loo ciseeyaa culimadana aqoon badan bay leeyihiin inay ka qayb galaan cilmi fahamka dhabta ah oo diintii iyo aqoontii caafimaad labadaba laisu geeyo oo markaa muxuu ahay talaabo laga qaado waan garta waxaan kusoo gabagabeynayaa doctor waad og tahay dalka Sweden joogto iyo dalkan Ingiriiska inuu joogno ama Britain-ba Soomaali badan ayaa fayrasku galaaftay oo iyagoo wadamadan jooga maxaa dadka Soomaaliyeed gudaha joogaan ama dibadda aad kula talinaysaa fariin caafimaad caawa fariinta caafimaad oo weyn oo muxuu ahay halkan aan ka baranay ama aan ka aragnay waxa weeyaan inaha guryaheena waxaa degan dad badan oo muxuu ahay da'a kala duwan waxaa degan awoowe waxaa degan adeer waxaa degan caruurtii dhalatay iminkada markaa muxuu ahay xanuunku muxuu ahay dadkii ma kala fogaan karo oo kala fogaanshahaasi wuxuu noqday xataa dibadda Yurub dhexdeeda ayuu dhibaato noqday marka waxaa talada weyn waxa weeyaan in aynu samayno guddiyaal bulsho oo ku wareega muxuu ahay deegaamada xaafadaha oo u sheega muxuu ahay dadka inay muxuu ahay halkooda ku ekaadaan u sheega qofkii xanuunsadane soo ogaada muxuu ahay dhibaatada u weyn waxa weeye see loo ogaanaya qofka muxuu ahay xanuunka loo celinaya haddaan la ogeyn qofkii xanuunsaday iyo qofka u dhintay labadaba aad baad u mahadsan tahay Dr. Khaliif oo Stockholm igaga soo biiray waqtigaaga